qaadku wuxuu saameyn ballaaran oo khasaare naf iyo maalba leh uu ku hayaa bulshada Soomaaliyeed maalin kastana waxaa soo gala Soomaaliya in ka badan 20 diyaaradood oo ka soo kaca dalka Kenya soona qaada qaadka loo yaqaan mirooga dhanka kale waxaa maalin walba Itoobiya ka soo baxa ilaa 50 waaraad oo sida qaadka loo yaqaan hareeriga oo markaasi noocyo kala duwanaa wuxuuna khasaare baan ku hayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay kala joogto mar aan mikrofoonka la dhex qaaday bulshada ku nool magaalada Ceelbu ayaa waxay ii sheegeen dhammaantood qaadku inuusan ahayn wax fiican oo markaas uu ku sugan yahay khasaare naf iyo maalbale waa kuwa bulshada aan qaadka cunin oo ka faalloonaya igana warramaya qaadka dhibaatooyinka uu leeyahay iyo marxaladaha ay markii cuni jireen ay ku soo kala mareen laakiin boqolkiiba 85 khasaarihiisa badan ay qofka xagga caafimaadka uma fiicna xagga dhaqaalaha uma fiicna xagga familka iyo guriga uma fiicna oo wax badan oo familka iyo xaafadda ka dabool lahaa laga yaabo inuu ka galo xagga la dhaqanka iyo dadweynaha uma fiicna oo qofka qaadka cuno goobo badan baanu aanu geli karin ama aanu tegi karin ama wax badan buu kaga habsaamaayo shaqadiisa aan ahaato ama arrimaha dadweynaha ha ahaato bismillah dhibaatada qaadka waa laga dheerigsan yahay hataa dadka cuna ayaa ka dheerigsan og laakiin wuu ka adkaaday hamuuntiisii ayaa soo jiidanaysa qofku marka uu habeenkii ka kaco wuxuu yiraahdaa aroortii ha u noqon dabadeedna aroortii markuu soo kaco bulshadii iyo goobihii uu fariisan jiray iyo asxaabtiisii baa u muuqanaysa wuxuu arkaya isagoo si yar oo fudud u galay khasaaraha uu leeyahay mid dhaqaale waa leeyahay mid caafimaad waa leeyahay mid haddii ilaahay ku rooyo qoyskii inuu ku burburo waa leeyahay qoyskii markii ninkii intii yarayda uu soo shaqeeyey uu maalintii ku fariisto oo ku barjeeyo waxaa dhacaysa qoyskii in dhaqaalihii geli lahaa oo halkaa ku lumo waxaa dhacaysa inuu habeenkii saamaleelo waxaa dhacaysa in carruurtii iyo xaaskii oo iska seexday inuu haddii ilaahay ku rooyahay ku jafo gurigii waxaa dhacaysa xataa in dadnimadiisii iyo ninnimadiisii ay hoos u dhacdo oo waxaa haddee qoysas badan oo Soomaali ay ku burburaan qaadku wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka muruqmaalka oo markaasi ka xoogsada magaalada Ceelbu dhexdeeda waxayna ii sheegeen inuu sabab badan markaasi uu ku leeyahay shilinka ay shaqaystaana iyagoo aan guryahooda ay ula yaacaan qaadka oo markaasi carruurtii iyo xaaskiiba ay halkii ay ku sugayaan waxayna sheegeen dhibaatooyinka faraha badan uu qaadkaasi u leeyahay oo naf iyo maalba leh waxa weeye ninkuu isagoo qatan ama reer ka qatay yahay buu qaadka la qabanaya waa kow marlabaadku waa hurdalaan waa lacag la'aan waa soo jeed khasaarahaasuu leeyahay marka bulshada Soomaaliyeed anigu waxaan kula talin lahaa bahalka dhaqaalaheena iyo naf iyo maal bayna naafeeyey aan ka tashano waa kuwan hooyooyinka carruurleyda ah oo markaasi iyaguna ka faalloonaya qaadka dhibaatooyinka uu leeyihiin iyo marxaladaha ay ninkooda isla soo maraan ayna sheegeen inay qoysas badan ay haatan ku burbureen oo xaasasa qaadku wuxuu nagu hayaa dhib weyn oo aan yarayn anigu waxaan dhalay 5 wiil 2 cuna labadaa iyo wixii la mid ah oo qaadka cunaaba haddaan helayno nus saaco uma daynayn qoys baan la eegay qaraabaan la eegay dhaqaalii buu nagala tegay nimankii iyo naagii baa isku nacay carruurtii baa ku dayacantay dee wixii ay helaan qaadka uun baa loo shaqaysanayaa iyo wixii xaaba ah oo lagu cuno marka qaadka waxaan leenahay haddii nala ka qaban karayo nala ka qabto haddii nala ka qaban karayo qaadka nala qabto ilaahay baanu ka baryaynaa wax xaggiisa ka qabta dhibaatada uu nagu hayo dhaqaalihii burburiyay qoysaskii uu dumiyay burburiyay bismillaahi raxmaani raxiim saameynta qoyska wuxuu ku yeeshaa ninka qaadka cunaa waxa laga yaabaa in isaga oo carruurtiisii qatan tahay qoyskiisa aan wax macnaha dhaqaalaha haysan baahi badan ay hayso inuu wixii uu soo helo uu qaadkiisto horta waxay ku haysaa horta qoyska ganacsiga waxa laga yaabaa wax badan oo dhaqaalaha aan dalka soo gali lahaa inuu qaadku lacagta qaad dambeyntii waxaan wax ka weydiiyey kuwa dadka qaadka cuna ee had iyo jaarale kana ganacsada
iibsadana waxayna ay sheegeen qaadku inuu leeyahay dhibaatooyin aad u fara badan ayna iska dayn kara la'ay inta mada cunaya intaana cunaya haye marka intee lacag lagaa siiyey waxaa laga siiyey $400 marka maxaad faa'iido ka helaysaa waxa laga faa'iido ka helaya ma jirto marka maxaa ku kalifay waxay u kalifay waxa weeye macnaha magaalada tuulaa qaadka saanuso qaadku waxa uu Soomaaliya ku hayaa dhibaato aad iyo aad u fara badan wuxuuna markaasi uu ku sugan yahay naf iyo maalba ayaa khasaaro weyn ay ugu jirtaa Soomaaliduna haatan ay ka dhigatay wax meherada oo markaasi qaybtood ayba ka ganacsadaan iyagoo taasna ogna ayay Soomaalidu haatan habeen iyo maalin ay cunayaan وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون عالمي الصومالي كيبل تي في دقمة علبة قبل كسناك